daawadayaal qaybtuna qaybta saddexaad wararka waxaa la dhinaca diblomaasiyadda horfadhi media waa 27 Abriil waa 2020 waa maalinimo daawadeeshana qiimaha la isniin aan ku bilaabo qaybtuna ugu horeysiye mid kamid ah xubnaha caanka ah ee dalka Britain siyaasiyiintiisa kamid ah samarkaana xildhibaan ah kana tirsan xisbiga Tory ee Conservative-ka Ra'iisul Wasaare Boris Johnson ayaa waxa uu ku dhawaaqay in uu dadka muslimiinta la soomayo toddobaadkan u horeeya isagoo sheegay inuu toddobaadkan bilaabay soonta ninkan oliyada Paul Pristow oo asagoo aan muslim ahayn ayaa waxa laga soo doortaa deegaanka Perthsbrough ee bariga England isagoo oo maqal iyo muuqaal oo video ah oo soo dhigay barta Twitter-ka ku sheegay go'aankiisa Ramadaan waa waqti cibaado isla markaana muujiya ayuu yiri qofku in uu horumariyo isla markaana la xisaabtamo naftiisa isla markaana uu xaqiijiyo qadiyadiisa dhinaca akhlaaqiga iyo xakameyntiisa ah nafta inuu majareeyo oo majare geliyo ayuu yiri sidaad anigu sidoo kale xitaa waxaan go'aansaday in aan soomo oo aan toddobaadka u horeeya aan soomo ma ihi muslim laakiin waxaan doonayaa in aan la falo ayuu yiri bal khibradda iyo waxa ay dareemayaan muslimiinta gaaraya 20,000 ee ku dhaqan deegaanka Peterborough ayuu yiri oo ah magaaladayda aan ku dhaqanahay wuxuu yiri si cad ayaa muslimiintu waxa ay u soomaan bil kasta diintoodu way caddahay isla markaana waxa jira shuruuc iyo qaabab ay raacaan sida daraadeed waxa aan doonayaa ayuu yiri bal in aan naftayda xakameeyo tababarka naftuna waxa weeye nafhuris ayuu yiri iyo inaad samayso ayuu yiri in aad eegto bal waxa ay falaan marmarka qaarkood ayuu yiri dadka nasiibku uusan u saamixin in mar walba calooshooda buuxinaato ama ay cunto haystaan ayuu yiri dadka muslimiinta waxyaalaha ugu badan ay noo sheegeen diintana ay noo sheegayso waxa weeye buu yiri bal in la isku fiiriyo lala dareemo dadka gaajoonaya gaajada deeqsinimada in markaasi macnaha ay sameynayso la sameeyo iyo in aad eegto iimaankaaga halka uu joogo dhamaan waan ku raacsanahay ayuu u sheegay Telegraph mar dambe oo khadka telefoonka kula hadlay ninkaasi xildhibaanka ah ee noqday asagu mid muslimiinta la tijaabinaya balsoonka Paul Pristow waxa uu ku celceliyay dhowr jeer in uu doonayo in uu in badan barto arrimaha ku saabsan islaamka waxaan rabaa in aan wax badan ka ogaado islaamka waxoogaa yar baan ka aqaanaa hadda laakiin hadda waxaan doonayaa ayuu yiri bal in aan wax badan ogaado aan bal la eego ayuu yiri bal sida ay dadku u soomaan aan fiiriyo bal sida ay naftooda xakamaha u galiyaan aan sidoo kale ogaano ayuu yiri waxa ay dareemaan dadyowga kale dunida oo dhan ku dhaqan ee iyagu maalin walba rooti ku filan helin ayuu yiri waxaan idin rajeynayaa uu dhamaanteen in Ramadaan tar ay noqoto Ramadaan wanaagsan anigana aad igu soo dhaweysaan toddobaadka u horeeya oo aan idin soomaya ayuu yiri markaasi xildhibaankan oo markaasi hadlayay oo hadalkiisa sii watay daawasha qiimaha leh halka kala socotaan wararka waxa la dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan hana moogaanina in Ramadaan la isku raacay gaal iyo islaamba gaar ahaan dadka dhaqaatiirta in caafimaad aad u weyn ku jiro oo la ogaaday in maalin walba daraasado hordhaca iyo kuwa markaasi lixadle oo istaageeraya ay sheegayaan in caafimaadka ay u wanaagsan tahay bisha Ramadaan gaar ahaan qof kasta oo markaasi sooma ama soonkuba si guud madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu maalin ducaa bisha Ramadaan uu ku soo beegay uu qabtay 105 guuradii ka soo wareegtay dagaalkii Gallipoli iyo weerarkii ay dawladihii isbahaystay reer galbeedka iyo reer barigu ku soo wada qaadeen dalka Turkiga iyo dawladda Cismaaniyada oo ay doonayeen inay ku wiiqaan awoodeedii iyo taageeradii kala dhaxaysay dalka Jarmalka dagaalkii koowaad ee adduunka ayaa waxa laga xusaa dalkaasi la yiraahdo Turkiga mar walba waxaana uu sheegay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan in ay xasuusanayaan wuxuu ku tilmaamay wadaneedii ayuu yiri iyo halyeeynimadii ay la soo banbixeen ciidan kuwaas oo difaacayay magaalada Istanbul ee caasimadda ah oo si weyn uga hilbadiray waxaana xasuusanaa ayuu yiri ciidankii askartii wiilashii difaacayay qarankan dhulkan iyo calankan naftooda u horay qarankan 105 sanadood ka hor Gallipoli ma ahayn ayuu yiri kaliya mid ina muujinaysa awoodda ciidankeena halkaas ku soo bandhigeen laakiin waa mid aan xasuusinaysa buu shuhadadii iyo hogaamiyaashii halkaas ka hilbadiray maalinta oo muujiyay geesinimo aad u weyn ayuu yiri goor damana Mustafa Kemal Atatürk ayaa ahaa ninkii xaqiijiyay geesinimada kadib markii uu magaalada Istanbul iyo gaarkeedu dhan ka xoreeyay ciidamadii huwantaha ee Ruushka Australiyaanka Faransiiska Niislaanka iyo ciidamadii iskaashaday isugu jiray kuwaas oo dalka ku soo duuray kadibna uu ku qaatay biladii geesinimada taas oo dhalisay in uu dambaskii dawladda Cismaaniyada ka sameeyo qaran adag oo mar kale cagiisa isku taaga in badanna uu markaasi sutada u qabtay haatan
dalka Australia ra'iisul wasaarihiisa ayaa asaguna xusay arrintaas isagoo ciidamadii kaga dhintay maalinta halkaa ugu ku tilmaamay in hayeen geesiyaal doonayay in ay xornimada adduunka gaarsiiyaan. Anzac Day baa looga yaqaanaa dalka Australia wuxuuna isagoo ka hadlayay magaalada Canberra ee xarunta dalkaasi oo barta maqaliya muuqaalka hadal kooban soo dhigay ayuu wuxuu sheegay in ay xusayaan maalintaasi. Wuxuu yiri maalintaasi dagaalkii koobaad ee adduunka waa maalin aad u weyn. ciidamadii Australia iyo kuwii New Zealand ee ka dagaalamaya halkaas ee loo yaqaanay Australia and New Zealand Army Corps waxay ahaayeen ayuu yiri kuwa la soo banbaxay awood isla markaana muujiyay ayuu yiri geesinimo asaga dhankiisu ayuu ka sheegay Scott Morrison oo ka hadlayay Canberra. Inta badanna dunida oo dhan waxay ku faantaa taariikho qaarkood gardarro yihiin kuwana ay yihiin geesinimo, balse inta badan Soomaalidu ama dadka Soomaalida ahi wax taariikh oo isku raacsan yihiin ma jirto. Inkastoo aan mar jecel inaan barnaamij ka sameeyno bal arrimaha taariikhda ee Soomaalidu mees xaqiraan maxaa ku dhacay, maxay Soomaalidu xusuwayaan haliyadooda waa maxay masiibada dhex taagan, mar baynu ka sameyn doonaa barnaamij noocaas oo kale daawashana qiimaha leh ee haatanna Saudi Arabia. dalka Saudi Arabia boqorkiisa boqor Salman bin Abdulaziz Al Saud ayaa wuxuu soo saaray qaraar labaad muddo 2 maalmood oo dad badan aad u soo dhaweeyeen. qaraarkan oo ama dekreeto ka soo baxday aqalka boqortooyada dalka looga taliyo boqor Salman bin Abdulaziz Al Saud fadhiyo ayaa waxaa lagu mamnuucay haatan iyo wixii ka dameeya in dil iyo daldalaad lagu fuliyo caruurta da'yarta ah ee dalkaasi marka ay galaan dambiyada qaarkood. hay'adda dhinaca xuquuqul insaanka ee uu sameeyay ay samaysay dawladda boqortooyada Saudi Arabia ee la yiraahdo waa laan ka tirsan dawladda oo la yiraahdo Human Rights Commission ayaa waxa ay ku dhawaaqday arrintan. madaxooda guud ee hay'addaas Awad Al-Alawad ayaa waxa uu sheegay in ay tahay arrintan arrin aad u weyn. wuxuu yiri dekreetadan macnaheedu waxa weeye ayuu yiri in qof kasta oo horay loogu xukumi jiray dil toogasho ah ama galay dil uu ku mutaysan karo dil toogasho ah oo ah qof yar hadduu yahay nin ama uu yahay haweeney ma jiri doonto inuu mar dambe wajaho dilka daldalaada qoorgoynta iyo sidoo kale, laakiin waxaa haatan iyo wixii ka dambeeya da'yartu ay wajihi doonaan xabsi kaasoo intiisa ugu badan ay noqon doonto 10 sanadood. qof kasta oo xabsigaas la geliyana wuxuu noqon doonaa xabsiga la geliyo xabsi u gaara da'yarta oo ah goobo markaasi tababar iyo dib u habeyn iyo dhaqan celis lagu sameeyo doono ayuu sheegay Awad Al-Alawad oo la hadlayay wakaalada wararka Reuters oo markaasi fasirayay dekreetada uu soo saaray boqor Salman bin Abdulaziz. arrintan waxay ku soo beegmaysaa 2 maalmood kadib markii boqorka dalkaasi uu sidoo kalena uu sheegay inay meesha ka saareen wixii loo yaqaanay markaasi dhangadayntii ama si kale carabi looga yaqaan ama karbaashka wax loo yaqaan karbaashka in dadka la karbaasho ayuu yiri oo la joojiyay ayay tanuna si baritaarasa. tani waxay sidoo kale ku soo aadaysaa iyadoo dalka Saudi Arabia uu noqday dalka labaad ama saddexaad ee dunida ugu dil daldalaada badan ayadoo sanadkan haatan warbixintii soo saartay aad loogu daadifeeyay talabooyinka Saudi Arabia iyo boqortooyadeedu ay ku kiciso dadka. bisheedii sanadkii hore ayay ahayd markii 37 nin oo dhalinyaro u badan oo qaarkood sheegay inay isan qaangaar ahayn lagu daldalay dalka Saudi Arabia kuwaas oo u badan kuwa haysta marhabta Shiicada oo laga soo ururiyay gobolka Bariga oo lagu eedeeyay inay mu'amaro iyo argixin ka wadeen dalka gudihiisa. dalka Sacuudiga ayaa lagu yaqaanaa markaasi in surka la hordhigo dadka gala dambiyada qaarkood iyo in xarig qoorta loo geliyo dadka ayaguna dambiyada waaweyn lagu helo. halka nagala socotaan daawadayaal waa warar wacala dhinaca diblomaasiyadda isla Sacuudiga inteena ka bixina dhowr meelood oo dalka kamid ah ayaa laga qaadaya iyagana bandowga waxaana aan ku jiri doonin magaalada Makka al-Mukarrama sida ay sheegayso dawladda dalka Saudi Arabia, laakiin sida uu soo saaray boqorka dalkaasi wareegto ku soo saaray waxaa la sheegay in qaybo kamid ah dalka la fududeeyo doono isku socodka ilaa iyo inta la gaari doono baa la yiri si ku meel gaara baa la yiri ilaa iyo 20 bisha Ramadaan waxay ka bilaaban doontaa ayaa la yiri 9 subaxnimo waxayna socon doontaa ilaa 5 galabnimo wixii ka dambeeyana waa la qafilayaa. haddana waxaase la sheegay in dib loo eegi doono mar kale oo la ogaa doono bal in magaalooyinka qaybo kamid ah la sii furo marka la gaaro 20 bisha Ramadaan iyo in xanuunku bal inta uu sii faafo si tartiib ayaa Sacuudigu sheegay inay arrinta u maarey doonaan u furfuri doonaan mar walba. qaybo kale oo isaguna muujinaya xanuunka dhinaca calaamadaha xanuunkan loo yaqaano markaasi coronavirus ama faafaha daran ayaa hay'adda Centers for Disease Control and Prevention CDC dalka Mareykanku ay mar kale ku soo dartay calaamadihii hore ayagoo sheegay markan in calaamadaha noocaas ay yihiin kuwa scientific oo kuwa la soo cilmiyeeyay oo aan hayn mala awaal bay yiraahdeen oo haatan iyo wixii ka dambeeyay qofka isku arka ay tahay inuu gaaro goob caafimaad. waxaa kamid ah ayaa la yiri sida lagu celiyay oo horeyna loo ogaa baa la yiri arrinta
qabowga ayaa laakiinse aan ahayn inaad qarqaryo dareento ayaa waxaa la socota ayaa la yidhi in aad ruxmayso ama gariir ku jiro gariir waxay yidhahdeen haddii aad dareento in uu qabow ku hayo laakiin qarqaryo ku jirto waa qarqaras oo aad gariirayso taa macnaheed waxa weeye inaad laga yaabo in xanuunka COVID-19 uu ku haysto ama uu kusoo wajahay murqaha oo ku xanuuna madaxa oo saayid ku xanuuna dhuunta oo ku xidhanta iyo sidoo kale in aad lumiso ayaa li dhadhanka iyo urta ama inay wax ku uraan ama ku caraf noqoto ama ur noqoto ayaa lagu yiri hay'addu waxay sheegtay in ay sidoo kale ay doonayso in dadka isku arka arrimahaas oo dhan ay ogaatay in 80% in ka badan laga helay xanuunka waxaa sidoo kale jira ayaa la yiri qandho ayaduna saayida qufac iyo neefta oo ku qabata waa wixii hore loo ogaa intaas bay yiraahdeen laakiin waxa mararka qaar kood jiri karaysa ay yiraahdeen qandho saayid iyo qandho go'go'ays labadaba daawasha qiimaha leh Kim Jong Un oo marba warka ku saabsan ay soo tarayaan laakiin aysan jirin war si rasmi ah looga hayo maadaama inta badan warka Kim Jong Un ku saabsan cidda ugu dambeysay laga sugayay ay tahay dalka waqooyiga Kuuriya qof kasta oo kale wararkaasna ay tahay uun xisaab lagana yaabo inay khaldanaato isla markaana laga yaabo inay rumowdo isla markaana Horfadhi Media aysan doonaynin in aanu daawasho qiimaha leh waxaan doonaynaa mar walba wararka Horfadhi Media ka daawataan warar sugan oo sax noqdaan sidaa daraadeed wadanka ugu dhow ee warbaahinta xorta tahay koonfurta Kuuriya la yiraahdo oo asaga laga soo xigto inta badan wararka ilaa hadeerto waxa ay ku adkaysanayaan in Kim Jong Un uu ladan yahay aqalka Blue House oo iyagu sheegay inay xaaladdiisa si dhow la socdaan meesha kala socdaan iyo meesha ka soo xigteen toona ma sheegin waxa ay sheegayaan in xaaladda Kim Jong Un laga yaabo in ay degan tahay laakiin wali waxa reer galbeedka warbaahintiisa qaar kamid ah iyo kuwa kale oo kamid ah dalka Shiinaha ay ka shaki qabaan nolosha iyo geerida Kim Jong Un hogaamiyaha loo yaqaan North Korea Supreme Leader Kim Jong Un oo 36 jir inuu yahay la aaminsan yahay ayaa la sheegay in ilaa iyo 12 bisha aan ilya baala saarin ayadoo oo sidoo kale la shaki u dhaliyay baa la yiri tareen ku xidhay goob ay iska leeyihiin oo postejo ay iska leeyihiin dadka reer Kim Jong Un iyo madaxdoodu oo la sheegay oo inay u isticmaalaan ama ayagu gaar u isticmaalaan baa la sheegay in tareen halkaas uu ku xidhay maalmihii u dambeeyay lana arkay dhaqdhaqaaq halkaas ka socda haddaba muxuu noqon karaa tareenkaas gaarka ah ee halkaas ku xidhay waxa la yiri waa maxay sheekada tareenka ku saabsan tareenka sheekada ku saabsan waxa weeye baa la leeyahay tareenka waxa si gaar ah u isticmaala Kim Jong Un oo 36 jir waxaana la sheegay goobta uu istaagay boostejada inay tahay goob u gaar ah hogaamiyaasha iyo qoyska reer Kim Jong Un waxaana la yiri haddaba dhibka ugu weyn halkaas ka jiray shakiga weyn oo ka jiray waxa weeye in dadka qaarkood isweydiinayaan Kim Jong Un in laga soo qaaday goobtaas oo meel kale ama dal kale la geeyay oo lagu soo daweynayo sidaas ayaa la sheegayaa goobtuna waxa weeye goobta leedahay Wonsan goortuna waxay ahayd baa la yiri ama lagu arkay laba jeer baa la tareenkaas oo halkaas maraya waana 22 iyo 23 bisha si kastaba ha noqoto sida ay sheegayso warbaahinta dalka si koonfurta Korea fadhigeedu yahay laakiin wariyaal soo cararay warbaahin ay asaaseen oo ay ka asaaseen gudaha dalkaasi koonfurta Korea waxa ay leeyihiin ilaa hadeerto xaaladda Kim Jong Un waa mid aan kala cadayn Daily NK baa la yiraahdaa ama Daily North Korea baa la yiraahdaa wargeyskaas oo Seoul magaalada xarunta waa dalkaasi fadhiya waxa uu leeyahay waxay u muuqataa arintu in waqooyiga Korea ay qarinayso badqabka iyo waxa uu ku sugan yahay ama uu mutay baa la yiri Kim Jong Un warbaahinta laakiinse dalka waqooyiga Korea warkii ugu dambeeyay ee magaca Kim Jong Un lagu soo qaado wuxuu dhacay xalay The Korean Central News Agency waa kaalada la yiraahdo KCNA war ay ka akhriday haweeney halkaas wararka ka akhrida waxa ay akhriday in hogaamiyaha xayta gudoomiyaha dawladda jamhuuriyadda dadka iyo shacabka bay tiri waxa uu helay oo salaan ka helay bay tiri gudoomiyaha golaha dhexe ee communistaha ee dalka Russia ama waxay ku tilmaantay the Central Committee of Communist Party Chairman oo ay ula jeedo the Russian Federation waxa ula jeeda ninka la yiraahdo Russian President ninka madaxweynaha Russia ka ninka la yiraahdo Vladimir Putin ayay ula jeeday iyadoo intaas oo wax istaba dhigtay ayay waxay tiri oo ku saabsan in uu xisbi communista u yahay gudoomiye asaguna waxay tiri
wuxuu salaan rasmi ah ka helay madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin taasoo ah warkii ugu dambeysay ee The Korean Central News Agency KCNA ay soo saarto waxaana tiri Vladimir Putin wuxuu ka helay salaan gudoomiye Kim Jong Un laakiin ma aysan sheegin salaanta meesha ku gudoomay iyo sidoo uga helay taasina waxay markaas iyadu ka dhigaysay sheekadu inay iska caadi tahay dadka iyo waxa sheegaya inuu dhintayna andhag bajlaq loo siinaynin intaan ku joojiyo